bulsho kasta oo dunida ku nooli waxay leedahay cunto dhaqameed u gaar ah. haddaba Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshada aroortii si isku mid ugu quraacda laxooxda ama canjeerada, mid faqiir ah iyo mid qani ah labadaba. haddaba halkee ayay ka timid laxooxda ama canjeeradu? ku soo dhawaada xubinteena maanta. magacayguna waa Cali Ibraahim. canjeeradu waxay ka mid tahay cunto dhaqameedka sida joogtada ah looga isticmaalo deegaanada ay Soomaalidu degto, taas oo lagu sameeyo guri kasta oo ay Soomaali degan tahay, hadday noqoto gudaha dalka iyo dibaddaba. xilliyada aroortii waxa uu sankaagu orinayaa carafta laxooxda, waana astaanta inaad Soomaali ag joogto. waa cunto ahmiyad ballaaran u leh bulshada Soomaalida, sidoo kale waa cunto aan la hilmaami karin aroor kasta marka laga reebo bisha Ramadaan oo qura, waxayna si dabiici ah uga mid noqotay astaan dhaqameedka bulshada Soomaaliyeed. marka la joogo gudaha Soomaalida, dhammaan qoysaska iyo maqaaxiyaha laga cunteeyo waxay ka siman yihiin laxooxda iyo diyaarinteeda. wixii la doono ha lagu iidaamo ama ha lagu darsado laxooxda ama canjeerada oo marka dalal qalaad la joogo loogu yeero canjeero Soomaali, waa cunto dhaqameed aan si buuxda loo haynin taariikhdeeda iyo goorta ay ku faaftay bulshada Soomaaliyeed. qof kasta ama shakhsi kasta oo Soomaali ahi waxa uu dhashay oo uu caqliyeystay iyadoo aroortii lagu quraacanayo canjeero ama laxoox, taas oo ka dhigaysa inaan la caddayn karin sooyaalkeeda iyo goortii ay soo bilaabatay. ma jiro qoraal laga reebay taariikhda laxooxda ama aasaar laga hayo xilligii ay canjeeradu soo bilaabatay, balse waxaa jira dood odhanaysa cunista laxooxdu inay Soomaalida uga soo gudubtay xadaaradii hore ee Xabashida, maadaama ay Xabashidu dhaqan u leeyihiin canjeerada. balse doodaasi ma aha mid dhaqangal ah, maxaa yeelay canjeerada Xabashida iyo ta Soomaalida waxaa u dhexeeya farqi cir iyo dhul ah, sababtoo ah waxay ku kala duwan yihiin qaabka loo sameeyo iyo waxyaalaha laga dubo iyo xilliyada la cuno. tusaale ahaan, canjeerada Xabashidu waxay ka samaysan tahay midhaha deefka, waxayna qaadataa in la khamiiriyo muddo 2 maalmood ah, halka canjeerada Soomaalidu ka kooban tahay midhaha hadhuudhka ama masagada, waxayna qaadataa inay ku khamiirto wax ka yar 18 saacadood. sidoo kale canjeerada Xabashida waxaa la cunaa time kasta ama 3 waqti, halka canjeera Soomaalidu ku astaysan tahay cunisteedu quraacda oo keliya. sidaa darteed lama oran karo canjeeradu waxay ka timid dhaqanka Xabashida. bulsho kasta oo ku nool caalamku waxay leedahay cunto dhaqameed ay ku faanto oo ay soo cuni jirtay qarniyaal fara badan. taas beddelkeeda Soomaalidu canjeerada ay dhaqanka u leedahay ee ay ku faanto waa tilmaanta qoyska Soomaaliga ah ama qoysaska Soomaaliyeed. bulshooyinka qaar cunto dhaqameedyadoodu waxay ka turjuntaa inay quutaan dadka danyarta ah, balse bulshooyinka Soomaaliyeed waxay ka siman yihiin isticmaalka canjeerada, oo haddii uu qoysku xilli aan aroortii ahayn samaysto canjeero, micnaheedu maaha in qoyskaasi dhaqaale ahaan liito, balse waa astaan muujinaysa hilowga ama xiisaha loo hayo cunista laxooxda ama canjeerada. guri kasta oo Soomaaliyeed xilliyada fiidkii waxaa ka shanqadha garaacista ama qasida cajiinka laxooxdii berri subax la cuni lahaa. dhawaaqaas oo ay ku raaxaysatay dhegtu waa mid u saaxiib ah soo jireenka faca weyn ee soo taxnaa tan iyo bilowgii nolosha Soomaalida. canjeerada ama laxooxdu waxyaalaha ay uga duwan tahay cuntooyinka kale waxaa ka mid ah in laga sameeyo dalagyada ka soo baxa gudaha dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin masagada ama hadhuudhka, galleyda iyo wixii kale ee soo raaca. bahda caafimaadku waxay aad u ammaanaan muwaadiniinta Soomaaliyeedna kula taliyaan inay isticmaalaan dalagyada ka soo go'ay gudaha dalka iyadoo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba wanaagsan. sidaas darteed canjeerada ayaa ugu horeysa cunooyinka laga sameeyo dalagyada gudaha dalka ka soo baxa. haddaba diyaarinta canjeerada ee maalinlaha ah waa mid ka mid ah hawsha ay gabdhaha Soomaaliyeed aadka u neceb yihiin. talow maxay tahay sababta ay gabdhaha u neceb yihiin hawshaas? fadlan haddii aad gabadh tahay, halka hoose ama comment-ka noogu reeb jawaabtaada. intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteennii maanta. intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nooli kulante.